shaqo noocee ah ama rajaynaysaa mustaqbalka inaa heshid oo aad qofka inuu xirfad raadiyo waxa waaye waa very important marka waan jeclaa way ahayd laakiin waqti dhow waana ii suurowday inaan barto waana bartay hadan oo ku shaqeeyaa insha Allah oo meesha ku sbay sax inaad garanayeen uu leeyahay qof aan yaqaan keen shaaricna magaalada shaqo la'aan ka jirto waxa laga yaabaa inaan ku heli waayo shaqo iyadoo kumanaan arday ay sanad walba ka soo baxaan jaamacadaha dalka ayna soo dhameeyaan fakaltiyo kala duwan haddana waxaa jirta caqabad ku hor gurban ardaydaasi caqabadahaasi waxaa loo sababeeyaa laba sabab in jaamacadaha dalka ku soo badanaya aysan lahayn quality iyo macallimiin tayo sare leh ayna soo saareen arday tayadii iyo waxbarashadii la rabay aan hubaysnayn halka kuwa badan ay ku doodaan in ay tahay ardayda Soomaaliyeed ee dhalinyarada inaysan baranin xirfado ka saacido shaqada si ay u caawiso hal abuurka shaqadooda aysan ku baraarugsaneen barashada xirfado kala duwan oo ka caawiso inay shaqo helaan dad wadaagayaan arrintan ka sameynayna waxaan ku suganahay Sodmo Academy oo kamid ah goob lagu barto xirfadaha qaybaha kala duwan hadii ay tahay muuqaal duubista iyo sameyntooda motion graphic computer basic iyo xirfado kala duwan waxa ay la qayb galay Kaynaan Jamaal Badri iyo Anas kusoo dhawaad waxaan ka bilaabayaa dhinacan Kaynaan soo dhaw magacaygu waa Kaynaan Xasan Cabdullaahi waan ku dhawahay barnaamijka waxaan kamid ah ardayda Sodmo Academy ku barato xirfadaha kala video editing iyo camera ku dhawahay magacaygu waa Jamaal Maxamed Cabdullaahi magacaygu waa Badri Cabdi doodan aad soo dhaweynaa ku dhawahay magacaygu waa Anas Xasan doodan xarajeen anay isfaan u insha Allah waan soo dhaweynaa Kaynaan maxaa baratay ku waxaan bartay video editing iyo camera maxaa ku keenay awal hore Sodmo waxay keenay dadka ka soo baxo dhalinyarada badankeeda jaamacadaha sidoo kale waxa dhacdo in ay shaqalaan ku dhacdo sida awgeed ay keentay inay xirfad bartiskeeda barto ma ka saacidaysaa siraday Sodmo shaqalaan ها وإنساعتها آدي آد هذا وان دمية لبض وان دمية إن شاء الله تعالى نقول إن شاء الله تعالى رجينا إن أظن إن شاء الله تعالى جمال maxaa ku keenay Sodmo Sodmo horta waxa uu maaday inaan ka barto video editing iyo kamerada sasoo maaday shaqo la'aan jirtana darteeda oo maaday ma ka saacidaysay bal goorma horta dhameysay waxa dhameeyay hadirtaan buu waa dhameeyay saacadaan taagan yahay waa dhameeyay Sodmo maxaa ku dhigay Sodmo waxaan u yimid xirfadan jeclaa inaan barto oo ah media gaar ahaan video editing iyo kamerada oo runtii islaahay waan dhameeyay horta laakiin waxaan islaahay maanta meel fiican baa ka gaadhay إن شاء الله هير كسرتين أنا قاعد إن شاء الله رجينا. صدمة محاولة ماذا أنس؟ والله ما صنتها صدمة عن إيران كبرتو سكيلز كهرباء سيدا هي فيديو إديتنج هي كاميرا حتى ما أوريد لو ده وانا بي حتى عم كترجرنا حتى علمنا إن هي هذا بمتري دافع عنه أشهادك هذا مركا هذه وعرنت أيضا وجدتها سنة واحدة حضرت أنه ما صنوا كينان رجل نوعي عاد لهاد مركز إيماني Sodmo والله رجع وحالة هاي أنا كبرتو فيديو editing كاميرا ظروف جرى أوي إذا ضلت جامعة دميديان يكبحيان شقمي هليان مركب وحن فينا إن شاء الله تعالى إن أمكن إن شاء الله تعالى شغل إن شاء الله كميت في عنا إن شاء الله تعالى مثلاً كاردونا عبرتي عبرت فيديو editing كاميرا ما جامعة مكلي جمال رجل نوعي عاد Sodmo مركز إيماني Sodmo markaan imaanayay waxa la rajo oo in aan ku shaqeysan karo xirfadda video editing iyo kamerada heerka jaamacadana waxaan dhameeyay heerka koowaad ee jaamacadda ka dhameeyay economic ayaa bartay dhaqaalaha baratay ee jaamacadda kugu filnay waysa macna inaad ha skills u baahday sidaas daraadeed waxaan u soo booqday xarunta Sodmo si aan u barto video editing iyo kamerada taasoo u saacidi karta in aan magaalada ka shaqeysto waxa soo bartay jaamacad farsan shan soo barata laga yaabo marka maxaa kaas kugu filnaa waysa isdhaahday oo xirfad u baahatay sabab oo keentay in meel kale si aadado farsan wax baranay jaamacadii dhameeyna in xirfad u sii baahatid maxaa keenaa waxa keenayo macnaha magaalada shaqo la'aan ka jirto waxa laga yaabaa in aan ku heli waayo shaqo waxa soo bartay sidaas daraadeed skillka iyo waxyaabaha gacanta ka qabanaya laga yaabaa in aan ku shaqeysto anigoon u baahan dad saasa u maaday Sodmo بدري maxaa kugu dhaliyay ku inaad soo xirfad raadiso macna aniga xirfad in raadiyo waxay ku dhaliyay horta school waqti dheer soo dhameeyay koor ilaa 2 sano koor meeshii aan jaamacadda ka aadi lahaana waxaan doorbiday inaan xirfadaha aado hadda intii ilaa 2 sano koor waxa jira xirfado kala duwan oo bartay waan islaahay noloshada badan ka bedeleen marka Sodmo waxay u dhiirigeliyay inaan barto xirfadaha aan arkay inay ka muhiimsan yihiin inta badan jaamacadaha Anas maxaa kugu dhaliyay
inaad raadisid xirfado. horta saan ka wada qabno waxay ahaydey waa maanta waxay adduunka xikmad tahay waxay ahaydey waxyaalaha ugu muhiimsan marka dee hadda 2024 aan joognaa marka waxay ahaydey qofka inuu xirfad raadiyo waxaa waaye waa very important marka aniga markaan tayada ka hadlayo aniga weligay waa rajayn inaan xirfadahaas iyo ahaydey aan multimedia kasoo noqdo sida hadda warbaahinta kale iyo waxyaalahaas editinka noocaasa marka joosay ka mid ahayd marka dhiirigelin qofna ma sayna naftii isku dhiirigelin macna inaad kasoo muuqatid media. of course ha yani waa ulaha oo waxay ahaydey anaa soo dhiganay hadda jaacad waxaan joogaa semester labaad maraya marka waxay ahaydey waa marka soo dhiganay rajayn inaan yani aan waxay xirfadaha noocaas barto marka صدمنا إني حرون يعني هذي كعان تاعي حرفها كور قوي مركز سيد أجل جاد لا يقدر فيه هذا هذي هذا ما دمي هذي وكبهاي مركز يدير أدونا كلا هذا أيوة. بارت فكرت يا مروسا وهرجينا ساينا رجنا أكل هذا إن حرفنا كمير برد السوق يدنا يكون قشوات إن حرفة دي سكشة سانو. ما استطعنا فرصة وقتها جعلها ودن كهذا أرض بينك صباح ذي وهذا عمل هاي يعني يتريب مركا حرفة مركا حنا عمسنا هاي إنها تهاي هي ذي والحاضر بيمسك مركا حتى واحد عن بتشين حكمت أنا جعلنا لما حرفة ذي كل شيء يستوى هذه مقالة مركا جعل ذي ذي حرفة برا إسكابي أنا جعل حركة فكرت كوميد ساينس مركا كوميد ساينس ملتميزة أنا وحسليه دي حوض قابلسيه تكنولوجيا ولا قابلسيه مركا واسكو بيسغري لبدا ان حرفه دawada bartay inaan jaacada labadaba waxay isku biyasgarey marka ana saytay u dhaarajeen hadda insha Allah